kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dhilooyinkii uu Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Rooble sheegay oo soo jawaabay hadaladooda iyo waxa ay ku soo jawaabeen iyo fanaaniin caan ah oo ka soo muuqday halkaasi ayaad barnaamijka ku daawan doontaan hadaladii Nimcaan Hilaac iyo Safiya Tusmo oo u doodaya dhanka dhilooyinka ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan balse marka hore saaxiib hana hilmaamin in aad barnaamijka la galayso aan u guda galno barnaamijka waxa baraha bulshada qabsaday hadal uu sheegay Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Rooble oo ah walaalka la dhashay sheekii caanka ahaa ee lagu magacaabi jiray Sheekh Boqolsoon hadalkaas oo ahaa sida tan gabar ajnabiyada ma iska daawanaysa dhilay baa tahay nin ajnabiga ma daawanaysa dhilay baa tahay hay baday tagaan doomay isla tagaan وش صوت دباشان ويلاش صوت دبال برا قبلها أجنبيات كان هاي الله أكبر ودلوين هالله شيء ما شاء الله وحلا إيش شيء قبل السراء قبل قاطع قميص يا إمامنا ما شاء واحد إلهي كعب صدر جل وعلا إلهي كعب صدر إلهي كعب صدر تنكل واحد إيش شيء نمان كأي ناجها قرابة كالسوش بيس وحلا شيء إنه بدأ تكان waxaa isla markiiba baraha bulshada qabsaday dhaleecayn loo jeedinayo sheekhan kadib baaritaan dheer oo aan sameynay waxaan ogaanay dhammaan dadka dhaleecaynta u jeedinaya sheekha oo aflagaadeynaya kuwaas oo aan bagaranaynba waxa laga wado dhilaysi iyo dhilanimo iyo sida ay u kala baxdo iyo sifooyinka lagu noqdo dhilay iyo dhilo haddaba waxaan isla daawan doonaa dadkii ka falceliyay oo ka carooday hadalka sheekha hadalladoodii iyo ficilada ay ku sifoobeen waxa gubay ee ku kalifay in ay far soo taagan noqdaan oo bulshada ka dhex muuqdaan oo ay ka hadlaan oo ay aflagaadeeyaan sheekha ayaan barnaamijka ku wada daawan doonaa noloshooda dhabta ah iyo waxa ka xanaajiyay iyo hadalladoodii oo ay sheekha ku aflagaadeynayeen ayaan barnaamijka ku wada daawan doonaa hadalka Safiya Tusmo iyo Nimcaan Hilaac inta aanan gaarin aan Big Bro iyo Kaafi Cabdi waa qolada isma dhaanto waxa ay ka dhaxeen iyo waxa ay iyagu ku sifoobeen iyo calaamadaha muujinaya in ay ka mid yihiin dadka oo sheekhu ka hadlayo ayaan wada daawanaynaa inuu leeyahay sheekhu isagna wuxuu ka talinayaa mataqaana in reer badan ay isfuraan فايدنا معنا حتى ما إنه رجع دوما كتا وسكت رامو جددا شل كلا شكيو لكلا فوقادو وصبايا fiiri Big Bro hadalkiisa bal fiiri waxa uu leeyahay sheekh waxa uu sababaya rag iyo dumarka uu isku diraya waxa uu sababaya in rag iyo dumarka ay kala fogaadaan hada waa ogow waa qowlkii Ilaahay ahaa kala fogaada kala dhowrsada jaahilnimada heerkaas gaarsiisan bal fiiri حتى ما شهر إنه رجع دوما كتا وسكت رامو جددا شل كلا شكيو لكلا فوقادو وصبايا haddaba dadka noocan u hadlaya ee sheekha hadalkiisa ka carooday ee uu gubay ee xaq uu gubay waa dad noocee ah maanta waxaan kusoo kursaday dabaan kusoo kursaday daba weyn lahayd hay hantidii lacagta ka bixiyay dabadii markaan guriga tagnay maba arkin bo okay fiiri dabadaadi ma hadda waxaan leeyahay maanta ana waxaan kusoo kursaday daba weyn lahayd dabadii weyn lacag ku bixiyay oo qas laga qaatay guriga qofka markaan la galana dabadii ma fiiri adi alla dabadaadi أنا بحاجة ودينا دولة رأسية كده بس كلها عبور إنك هتجي زوم الحلقة بس دولة واحدة كده بس حاسة كده بس hadda ogow qofka noocaas u hadlaya ee sidaas u dhaqmaya ayaa sheekha hadalkiisa ku tilmaamaya hadal qaldan waa hadalkii sheekha ee xaq ahaa dadka laga hadlayna waa dadka noociisa ah hadda aan kaafina fiirino waxa kale oo kale fadhi istaag bidkeecha asha qaabkeecha asha istaagka bidkeecha asha سؤال قدر يا سؤال قدر الله حد أقول لك أشياء شكلك من دورة ولا يا تسمع برافد ديك الرجال نص يا عيال من الباب صاير جبيل waka dhaqankoodu waa noocaas dhilooyinka uu sheekhu ka hadlayana waa dad noocan ah ee ma ahan dadka wanaagsan ee dhowrsan bal kuwan aragnaye Nimcaan Hilaac iyo Safiya Tusmo aan iyagana fiirino Safiya Tusmo ayaan ku horeynaynaa sheekhan maxaadiraynaya le naagta nin daawata waa dhilo ninka naagta waa dhilay
naasada walaha maxay safiya dhalay mu haray reloaded dadkan reloaded-ka ah nimankii naagaha dadka daawada waa reloaded saas mo he reloaded ma aran karo anyway isaga noo maxaadirinayaan bal aan fiirino Safiya Tusmo waxa gubay ee kululeeyay ee dhibkaas oo dhan u geystay ee hadal Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam ka sugnaaday in ay ku jeesto sheekh sheegay bal waxa gubay ayadana aan fiirino hargeysiyo buugood liyowno burcamiyaan ku geeya geyigo barwaaqa geeru dhalay geeduguna baxeen ubaxuna guntamay adku gamaadide buramahan ku geeya waxaa haysta qaadaya oo ragga iyo dumarka meesha ay wada joogaan ku caweynaya ku neekinaya qaaqaawan Safiya Tusmo horta waxa haysta qaadaya sidaas ayay rabtaa inay ahaato in la yiraana ma rabto xumaan ayaad ku dhex jirtaa dhilaynimada sheekha sheegay waa qayb ka mid ah qaybtan ay ku dhex jirto hadda Safiya Tusmo waana waxa gubay ee kalifay in ay ku jeesto hadal nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugnaaday yacni ibnu aadanka waa loo qadaray qaybta uu sinada ku leeyahay sinada marka la yiraahdo Soomaali ahaan waa dhilaysigaasna waxa soo hoosgelaya yacni waxyaabo badan indhaha waa ay dhilaysanayaan oo waa fiirada macnaha marka wixii xun ay aad ku fiirisid waay dhagihiina waa dhilaysanayaan oo marka aad ku dhageysatid ku maqashid wax xun gacmihiina waa taabanayaan oo mataqaana wax aan lagu banayn ayay taabanayaan oo waa kuwaas raggii iyo dumarkii isdhaxyaacaya taabanaya oo aan kala jecleen banaystana waliba lugihii waa ay u soconayaan xataa lugaha waa laga dhilaystaa oo lugaha macnaha meeshii haddaad u socotid inaad soo sinaysatid luguhu qaybay ka yihiin oo mataqaana waa ku aadaba sinadii ayaad ku aaday waa dhilanimadii ayay ka mid tahay nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri qofka qalbigiisa waxa uu gaari doonaa heer uu haweysto oo uu tamaniyo sinada markaas kadibna farjiga ayaa u rumeynaya ayuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam sidaan la isku dhaxyaacayo oo aan la kala socneen oo la isdabaashiinayo badda inta la isla galo oo mataqaana meelaha hoolalka la isugu yimaado rag iyo dumar oo aan la kala socneen dumarkiyo qaaqaawan oo jirkoodii banaanka yaallo raggiina ku dhex jiraan macnaha waxa waaye waa hadalkii nabigu sheegay ee uu yiri qofka qalbigiisa waxa uu gaari doonaa heer uu haweysto inuu tamaniyo ugu dambeynna uu farjigu rumeeyo macnaha farjigu markuu rumeeyo lagu leeyahay waxaan hadii fawaaxishadii socoto ugu dambeyn waxa imaanaysa oo dhilaysiga kore ama la istaataabto ama hal isfiirsho ugu dambeyn in la isku taga imaanaysa oo sinadii weyneed ama dhilaysigii weynaayba lagu dhacaba oo halista ahaa bal aan isla fiirino hadalka nimcaan hilaac ee uu ka yiri hadalka sheekha nimcaan hilaac waa ka qoraalkan soo qoray waxa uu yiri faladeganka culimada sheekh dhilo hadduu sheekhiyo oo sheekh dhilo ku tilmaamaya xayraankan gadhka daystay af xumaa oo ay xumaa wax kale uu dadka ugu wacdiyo ayuu waayay markaasay hablaha ka tustay kanoo kale ubadkiisa ayaa suuqa ka galay sababta uu caaytamayo hadduu fanaankii nimcaan hilaac ayaa sidaas dhahaya bal aan isla fiirino nimcaan hilaac meesha dhilaynimada sheekha sheegay oo ka soo galayo iyo waxa gubay iyo waxa keenay in uu sheekha sidaas u aflagaadeeyo ma dhilayaasha laga hadlayay miyuu ka mid yahay sababta aan muuqaalkan u soo gudbiyay ma ahan anigu inaan u gafo nimcaan hilaac tusmo kaafi cabdi bigbaro laakiin muhiimadu ayaa waxa ay tahay
inaan soo bandhigo xaqiiqada ay ku sugan yihiin iyo waxa keenay in ay dafiraan axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo waxa ay ku sugan yihiin iyo bulshada sida ay u marin habaabinayaan oo ay doonayaan in ay u dhigaan waxay iska dhigayaan oo iska matalayaan dad diidan hadalka sheekha laakiin waxay diidan yihiin hadal nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ka sugnaaday ee saxiixa waxa gubaya ee keenaya in ay culummada aflagaadeeyaan waxa weeyaan ayagii ayaa laga hadlay oo xaqa loo sheegay xaqii ayay rabaan in ay diidaan wixii loo sheegay oo la yiraahdo sameynina maadaama ay ayagu ku sugnaadeen wixii qaladka hay oo ay sameynayeen ayay doonayaan inay bulshada uga dhigaan wax fiican in ay sameeyaan waan intaas inta gubtay oo dhibka u keentay channel ku cusubtahay subscribe saaro barnaamijka la garay insha Allah barnaamij kale oo